madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa lagu wadaa inuu toddobaadkan u socdaalo caasimadda dalka Itoobiya ee Addis Ababa. Waa safarkii u horeeyay oo uu ku tagayo madaxweyne Xasan Sheekh Itoobiya tan iyo markii la doortay 15kii bishii May ee sanadkan, isagoo horey booqashooyin ugu tagay dalalka dariska la ah Soomaaliya iyo kuwa gobolka sida Kenya, Djibouti, Eritrea iyo Uganda. Hogaamiyaha Soomaalida oo casuumaad ka helay Addis Ababa ayaa kulan la qaadanaya ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed Cali oo ay ka wada hadli doonaan xiriirka labada dal iyo arrimo kale oo ay ka mid tahay dagaalka Al-Shabaab. Xiriirka Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa u muuqday mid aan wanaagsanayn intii xafiiska uu joogay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, waxaana mugdi badan sii geliyay booqashadii maalmaha qaadatay ee madaxweynaha Soomaaliya uu ku tagay caasimadda Masar ee Qaahira. wafdi horudhac u ah madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ku sugan magaalada Addis Ababa. Wararka ayaana sheegaya in laga yaabo in Xasan Sheekh Maxamuud uu Addis Ababa gaaro Arbacada biri ah. Telefishinka dowladda Itoobiya ayaa dhowaan warbixin uu baahiyay ku sheegay in xubno ka agdhow madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo xiriir la leh TPLF ay ka shaqaynayaan xumaynta xiriirka labada dal, balse war kooban oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya ayaa lagu sheegay in warbixintaasi aysan ka turjumayn siyaasadda dowladda Itoobiya. Xukuumadda Addis Ababa ayaa xiriir wanaagsan la lahayd dowladdii madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxaana mucaaradkiisa oo hogaankooda uu ka mid ahaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo hadda talada haya marar badan ay ku dhaliileen inuu la saxiixday Abiy Ahmed heshiisyo halis ku ah dowladnimada Soomaaliya, kuwaasi oo aan la horgeyn baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.